Okay, maanta waxaan idin tusayaa sidii loo sameyn lahay calan oo fanaan loogu dhaji lahaa adigoo calankaaga aad ku dhex jirto sidii hadda gabadhan aan qoraayo Mareexaan Netherland State. Haddaan dib u noqono waa aragtaa macnaa dib aan hoosh u celinayaa. Waxaan rabaa hadda kadib inaan soo sawiro wixii hoosh waan dhameeyey. macnaa wax way u baahan tahay markaad muuqaal duubayso muuqaalka markuu dhammaystiran yahay inaad dadka tusiso kadib soo ogaadaan waxa aad sameyn rabto inuu yahay wax oo nadiif ah. muuqaalkeen intuu ka bilaabanaa cashirkeen intuu ka bilaabanaa marka baro sida loo sameeyo calankaas oo aad isku dhex geliso kadib calanka adigoo hortaagan aad fanaanad mise maaragtay dhar ama go ama calan aad ku samaysato. like iyo subscribe noo saara JD969 YouTube iyo TikTok waa isku magac JD969. fadlan subscribe, like, follow, share and comment inoo dhaha. waa mahadsantiin akhyaaray meel kastaba joogtaan. Okay, waxaad furanaysaa waxaad tagaysaa meeshaan qoran Windows key kadib Word aad raadinaysaa Microsoft Word Office 207 aan ku sameeyaa. markaad ku dhufato waxaa ku soo baxay page blank yani page eber page markaa blank uu ku yahay kadib waxaad sameynaysaa page-kaagi meeshaas ma aragtaa oo home insert iyo page layout kadib page-ka waxaa ka dhigaysaa landscape ama jiif saad u garanayso. kadib waxaad soo qaadanaysaa shapes oo insert ku dhufani kadib shapes oo aadaysaa boxkaas oo afar geeska ah ama rectangle-ka soo qaadanaysaa kadib calanka sidaas u sameynaa. calanka waa aragtaa waan sameeyey kan. marka waxaad sameysanaysaa laba boxka ama saddex box aad sameysanaysaa. right click copy aad dhihi kadib right click paste laba xabo kuu noqday intaa geysanaysaa. midka kale paste aad dhihi kii saddexaad waa soo qaadanaysaa intaa keenay oo kii saddex baa haystaa. midka kore waxaad tagaysaa format shape fill waxaa loogu talagalay color inaad u yeeshid boxyada aad sameynayso. color halkaan aad ka dooranaysaa color fara badan oo aragtaa color nooc kasta helay more fill color ku dhufanaysaa kadib colorada calanka Soomaaliya ka camal ku dhufanay midkan kadib okay hadii calanka waa haysanaa ogaa calanka waxaa moodaa in colorkiisa blue dark uu yahay noocaan ka dhiganaynaa. shapes ku noqonaysaa waxaad tagaysaa meeshaan ku qoran insert shapes saale calankaas xidig waxaas waa cidda star point ma aragtaa xidiga kadib xidiga halkan ku sawiraysaa. xidiga calanka Soomaaliga Mareexaan Somaliland marka la laho kow horta waxay bilaabayaan inay Soomaaliyihiin cadeeyaan kow Soomaalnimo qireen haye waxaa inoo xiga shape-ka outline aan ka saari Soomaalnimo inoo xiga dhexdaan cadeen waa midaan yani nabadii waxaas ku saleeyaan. midda hoose waa gaduud marka format dib ugu noqonaysaa shape fill kadib red-ka dalbanaysaa. gaduud waxay cadeynaa in uu soo dhiigaystay macnaha wadanka dhiig ugu soo daatay dagaalo fara badan ka soo qayb galeen dhulkooda u soo doodeen oo dhulkooda ma aragtay u soo dhiigaysteen oo dhiig kaga daatay. xataa gaduudkan waxaa kaloo lagu fasiraa dagaalkii gumeystihii waagii hore Britishka iyo Talyaaniga iyo Faransiiska inta wadan oo gumeysatay oo Soomaaliya oo gobolada qaar kala gumeysteen. gumeysiga markii wadanka laga bixinay dhiiga daatay wiil ku dhintay marka meesha laga soo qaadaa kan gaduudka ah. okay gaduud oo xaal qaado calanka waa kan iskeenay marka calankan waxa lagu ogaa karaa qolal leh ma Mareexaana leh ma waxa leh shiqaal ma jareera leh oo shiidla ma leh shabeela ma leh oo eeylo ma leh qortooyda qoomeyda eeylo ma leh yaa leh waay ma juuraana leh waa inaa marka qoraal ku qortaa. qoraalka marka waxaa ku qoranaysaa halkaan kore meeshaan kore space-ka cadinka reebnay insaada ku dhufanaysaa word aada ku dhufanay kadib soo qaadaysaa qoraalka waxay yihiin Mareexaan waaye waa ku dhufanay. shapes-kan info-text macnaha wuxuu ka apply gareynaa qoraalkan meel kasta inaad geysan karto laakiin hadda info-text dhihin waxa waaye wuu diidayaa oo mar kastaba waxa waaye inuu keedo oo meesha
dhigtay bis uu ahaan mooy meel kale kuma aaday mareexaan. Okay, mareexaanow xaal qaada mar labaad like iyo subscribe iyo saarade waa aragtaa calankeena saa idinku kala kicinayo maasha allah dad weynaan tihiin. waxaad tagaysaa fiil kadibna waxaad ka dhigaysaa colorka black. already waan haysanaa magacii waxaa noo dhima hoosta hoos laba midaas samey kartaa right click copy aa dhihe ama waxaad dib ugu noqon insert waad aadaa dib ugu noqon kadib kaa ku dhufane marka right click paste aa dhehaysaa mareexaankeesu soo koobismi marka mareexaan. okay mareexaan meelo badan degaan aan lahay. okay mareexaanka kee waay kan intuu degaa. okay aan ku dhufana marka mareexaan dad qaar waxay dhahaan mareexaan Somaliland mareexaan Gadaland kuwaan waa mareexaan Gadaland waa marka Gadaland reero Gadow waaye kadib waxaan dhahaynaa Gadaland Somali. okay copy adi paste again paste. okay qoraalkan yar inta waxaan u keeno waxa waaye right click edit adi waa bedeli kadib waxaa dhihi state mareexaan Gadaland state mareexaan Gadaland state qaarta xaal qaarta xaal macnaha raala naqra waaye kii ka xun in calankiisa aan sameynayo ha ku farax hadda kii ku faraxsanna follow iyo like hasaarada JD969. okay mareexaan Gadaland calankii wixii dhan waa haynaa. okay hadda maxaa noo dhiman inaan qofkii calankan dalbaday wuxuu rabaa sawirkiisa meeshaan laga muujiyo halkan. okay insaada ku dhufanaysaa picture ku dhufane markaa sawir ku dhufato sawirkaas soo galay sawirka gadaal buu naga aaday formaada ku dhufanaysaa text wrapping kadibna infront text hore soo marsiyay aan dhahnaa front text ama infront text waa kan gabadhi soo qaadaysaa sawirkeeda inta ku aadanaysa xidiga u qarsamin xoogaa page waa yareynaysaa si u wada aragto calanka iyo gabadha ku sawiran kadibna weynaysanaysaa kaa weynayso waxay waa yareynaysaa gabadha. okay waad aragtaan mareexaan Gadaland gabadha xoogaa colorkeeda wax yaraan ku daraynaa right-ka. okay smart girl mareexaan Gadaland gabadhi waa taa boqorada reer mareexaan Gadaland iska dheh tusaale waaye hadda iyada ahaan gabadh kale u doorta calanka saa aan ku dhammaanay kadib muuqaalka xig waxaa idin tuseynaa sidii maaragtay oo loo print gareeyahay. hadda waxaa aadaynaa meesha print preview na tuseynaa calanka qaabka u muuqanayo waa diyaar page waa size sax waaye print aan ku dhufaneynaa kadib printerka ku dhufanay current page ina dhahdo waaye A4 aa ku print gareyso no this page number waa A4 aa ku printanaysaa kadib print aa ku dhufanay print markaa ku dhufato sheegi uu soo saarmaa qaabka uu saarmaayana inaan kaamira dhinaca idinku leexiyaa kadib save aan dhahaynaa maxaan ku save gareynaynaa waxaan dhahaynaa waa ka uu save gareysan yahay Gadaland flag mareexaan Gadaland flag saveaas inoo save garey YouTube iyo TikTok waa isku magac JD969. fadlan subscribe like follow share and comment inoo dhaha waa mahadsantiin akhyaaray meel kasta joogtaan.